السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. walaalyaal soo dhawaada waa channelkeygii caafimaad waa anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed. mar walba waxaan idinkugu soo gudbiyaa halkan mowduucyo caafimaad kuwaasoo ah bulshada waxtar u leh, dhibaatooyin la xiriira caafimaad xumida, qaybaha kala duwan ee bulshada saameeya mar walba. waxaan jeclahay maanta inaan idin soo gudbiyo cudur aad iyo aad u muhiim badan kaasoo muddo dheer soo saameynaya ama ku dhacay ilmaheena yaryar 5 sano wixii ka yar. cudurkaasoo loo yaqaano cudurka jadeecada, afka qalaad wax loogu dhaho measles. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo cudurkaas insha Allah. intaanan gudo gelin waxaan idinka codsanaa channelkeyga inaad subscribe gareysaan, wixii comments ah iyo aragti iyo su'aalo aad qabtaan inaad ii soo qortaan si aan idinkaga soo jawaabo wixii baahidiina ah insha Allah. horta measleska muxuu yahay ama jadeecadu? jadeecadu waa cudur muddo badan soo jiray una badan wadamadan dabcan developing countrieska ah ama wadamada horumarayo sida anaga aan ka mid nahay, Afrika, bartamaha Afrika, Aasiyadaas fog, Bangladesh, India, Pakistan, wadamada ee crisiska ay ka dhaceen sida Afghanistan, Iraq, Yemen. sidoo kale anaga waxaa laga yaabaa cudurkaas waxyeeladiisu ilmaha inay aad iyo aad u badan tahay. jadeecadu haddaysan helin dabcan karantiil fiican iyo dabcan wax loo yaqaano daryeel fiican, waxaa laga yaabaa cunugaas inuu u waxyeeloobo ama disability ay ku dhacdo oo dabcan u curyaamo. dhibaatooyin badan ayuu leeyahay cudurka jadeecada. sidiisaba dabcan marka ugu horeysa horta waa maxay jadeeco? insha Allah waa dul istaagi doonaa si briefly ah waxyaabaha keena jadeecada, calaamadaha lagu fahmo, maxaa lagu daaweyn karaa. insha Allah soo dhawaada. jadeecadu waxay ka mid tahay cudurrada sida saaidka u faafa. waa cudur dabcan saameeya respiratory systemka ayuu ku dhacaa, waxaana sababa wax loo yaqaano viral infection, viral agent oo loo yaqaano measles virus kana tirsan gruupka Paramyxovirus. jadeecadu dabcan markii ilmaha ay ku dhacdo toos directly waxay infected ugu noqotaa respiratory system, neef-mareenka. marka hore waxay ka bilaabataa upper respiratory system, nasalka, then throat wuxuu usii gudbaa caabuqii viruska lower respiratory system, pulmonary-ga. waxaa kaloo uu dabcan uu saameeyaa jadeecada gastrointestinal tract-ga iyo lymph nodeska oo ah systemka systemic circulation-ka qaybta difaaca. sidaan wada ognahay marka jadeecada waxay lysis ay ku sameysaa marka epithelium cells-ka ku hareereysan qaybahaas kala duwan aan soo sheegnay, respiratory systemka, gastrointestinal. waxay sameynayaan marka wax loo yaqaano dhibaatooyin ayay sababtaa ayadoo maadaama virus uu yahay wuxuu isku bedelaa dabcan dhibaatooyinka ay sababto secondary bacterial infection wax loo yaqaano. secondary bacterial infection kaas dabcan cunuga waxaa ka dhalan karo in uu ku dilaaco gastritis ama diarrhea, shuban biyood inuu ku dilaaco marka hore. waxaa kaloo dabcan laga yaabaa inuu develop gareeyo pulmonary diseases sida pneumonia oo kale ayaa ku dhici karto. wuxuu kaloo dabcan saameeyaa otitis-ka dhegaha, otitis media wax la dhahay ayaa ku dhacay. waxay kaloo dhibaato ay ku reebi kartaa conjunctivitis. jadeecadu dabcan maxay leedahay marka maxaa lagu fahmi karaa? jadeecadu dabcan waxaa loo kala qaadi karaa marka hore severity of infection, waxyeelada cudurkan si guud ahaan yuu ku badan yahay. waxyeelada cudurkan sida hadda soo sheegnay wuxuu ka badan yahay community-ga overcrowding-ka ah. dabcan community-gu isku dhex nool oo noqonayo displaced iyo dadka malnutrition-ka. marka la dhaho marka jadeecada laga hadlayo developing countrieska oo anaga aan ka tirsanahay, siyaabo badan laba siyaabood ayaa jirto dabcan in uu aad ugu bato. wadamadan kasoo hadlana waa crisis, anaga crisiska mar walbana saameeyo. sanad walba waxaa la arkaa droughts, abaaro soo laabto.
security problem war inuu dagaalo ay dhacaan meesha marka ay dhacaan effectigaas uu dhaco waxaa ka dhalanayo wax loo yaqaano community displaced in community-gan ay meesha ka barakacaan meelo kale ay tagaan haddii population-kan uu barakaco location-ka uu deganayo caadi uu ugu noolaa uu barakaco uu meelo kale uu barakaco waxaa laga yaabaa inay dhacdo meeshaas uu barakacay overcrowded inay ku noqdaan cariiri waxa ugu badan oo jadeecada keeni kara waa cariirigaas qoysa laga yaabaa in meeshan intuu ka barakacay kaam ay ku jiraan 1000 qofood 1000 qoys in la u dhex degay soo qoyskaasina inuu ka kooban yahay dabcan 3 cunug iyo hooyadii aabaha at least 7 qofood waxaa dhici karta marka qoyskaas ilmo kamid ah inay infected yihiin oo jadeecadii hore u haysay si direct la ah marka community-gii ayuu u gudbin karaa siyaabaha ugu gudbin kara waa dul istaagi doonaa insha Allah overcrowding-kan marka maxaa ka dhashanaa marka in ciriiri lagu wada noolaado buush hal qoys haduu degan yahay qoyskaasina 1000 qof qoys ay dhex degan yihiin kaamkaas waxaa imaanaya marka hygienic problem nadaafad xumo imaanayso contaminated water biyo oo dabcan waxaa la isticmaalaa oo aan nadiifsaneyn waxaa kaloo jira marka poor ventilation meeshii lagu noolaa ciriiri badanaa jiro hawo fiican ma heli karaan deegaankii oo dabcan waxay ku wada jiraan buush soo waxyaabahaas oo isbahaysado dhan ayaa horta koow sabab u noqon karo severity of infection inuu mar walba locationada crisis-ka uu ka dhacay oo sababto waxaa kaloo sabab dabcan keeni kara in cudurkan mar walba high uu ku noqdo community-ga qaasatan anaga iyo dadka crisis-ka uu ku badan yahay ama drootiska waxaa keenaya wax loo yaqaan malnutrition case-ka loo yaqaan nafaqo darada soo case-kan waxaa marka ilmaha markay dabcan cunto ku wanaagsan aysan helin waxaa ku dhacaya growth retardation soo marka waxay u nugul yihiin marka wax walba oo dabcan oo infection ah communicable disease ugu horeeyo jadeecada ugu horeyso waxyaabo kale ay jiri karaan soo marka cellular immunity-ga ilmaha ayaa hoos u yaraanayo haddii cellular immunity-ga ilmaha uu hoos u yaraado waxaa dhacaysa marka normal haddii raashinkii ay ka go'aan biyihii ay saabi karin cunugii uu xanuunsan yahay soo susceptible ayuu noqonaa mar walba nafaqo daradaas ayaa aad iyo aad qayb ka qaadanayso in ay dabcan ay dhacdo in qofkan oo jadeeco ay ku dhacdo ilmaha yararka sidee la isku qaadsiyaa marka transmission way-ga waxaa jira marka qaabo badan oo la isku qaadsiyo waxa ugu horeeya waxa waa marka qofkii in inhalation ilmihii yararka inay mid kamid ah oo infected uu yahay cudurka uu ku dhacay uu qofkan ilmaha kale uu gudbin karo by inhalation neefti ayadoo uu ku neefsanayo marka labaad direct contact inuu ilmihii cunuga kale uu taabto oo asagoo infected ah oo taabashadaas uu taabanayo dabcan waxaa laga yaabaa marka si easy transmission ah inay ugu gudbo waxaa kaloo dhici nasal secretion inuu ilmaha coughing directly ugu qofco cunugi kale ayadoo meel la wada joogo la cayaarayo oo dabcan oo meeshii ay tahay meel oo ilmo badan ay joogaan that's the easy way of transmission ilmihii uu ku faafayo ilmaha uu ku dhacayna waxaan soo sheegin inuu yahay wixii 5 sano ka hooseeyo oo aan talaal qaadan marka waxaa jira marka clinical manifestation calaamado ka soo muuqanaya marka calaamadaas ka soo muuqanayo waxa waaye marka faces u kala baxayaan wajiyo badan ay u kala baxayaan calaamadaha waxaa ugu horeeya dabcan waxa loo yaqaano incubation period oo ah xilli huuriska cunuga markay viralka uu saameeyo dabcan waxay qaadanaysaa in uu xilli huuris uu galo ilaa at least 8 days up to 10 days 10 maalmood ayaa waxa laga yaabaa marka inuu ku jiro jirkiisa danna marka uu infected uu noqdo waxa soo baxaya wax loo yaqaano phase-ka prodromal phase prodromal phase-ka asaga dabcan wax kale ma ahan waa phase cunuga waxa ka soo muuqanayo qufac yar iyo qandho badan lagu arkaa iyo meelisi iyo caajis iyo madax xanuun badan oo cunuga sheena at least marka waxa ay yaacaan oo dabcan calaamadahaas ay ka soo baxaan cunugii lama fahmi karo marka qaabku uu xanuunsan yahay so still marka unrecognizable waa hooyadii waxay leedahay waxa hay hergab ma fahmayso marka clinical in waxaan soo socda ay yihiin baashi measles ama jadeeco face-ka kale uu gudmaayo waxa marka rash inuu soo baxo face-kan loo yaqaan rashka
faceka raashka markuu uu soo baxana waxa waaye waa meelaha facekan oo dabcan ii sheeg aan uga hadalnay raashka waxaa la socda marka in cunugii uu ka bilaabo from heat nabro badan ay kasoo yaacaan waxaa u dheer marka facekan qandho badan oo side high fever at least 40 centigrade gaarayso waxaa kaloo dabcan cunuga kasoo muuqanaya wax loo yaqaano corblet spots white spots oo gudaha afka ah buccal regionka iyo dhabxanaga oo dhan qaybahaas dhan afkiisa markii la sameeyo physical examination waxaa lagu arkaa marka corblet spots waa unique waaye calaamado gaar u ah oo measleska lagu fahmi karo wuxuu kaloo cunuga uu leeyahay marka sore throat dhun xanuun dhuntii xanuunayso wuxuu loo vomiting ayuu sameynaa oo soo mataga qufac badan oo joogto ah iyo qandhadii oo saayid ah soo marka raashkan markuu kasoo yaaco jirkiisa dhan waxaa ku dhacaya wax loo yaqaano discoloration midabkii dhan oo jirka isbedelaya nabaro yaryar oo vertical hemorrhage ah oo yacni gudguduudan ayaa jirkiisa kasoo yaacaya from head to lower hoos ayay ku yaacaya marka cunugana qandhadiisa saayid ah marka maxaa lagu daabeeyaa marka waxaan u gudbinaa marka qaybta treatmentiga horta sida markii laga hadlayo cuduradan viruska specific treatment gaar ma lahan laakiinse waxay leeyihiin supportive routine treatment qofkan in yani supportive loo sameeyo care gaara loo sameeyo treatment so you have to focus on inaad saartid hooyada waa inay diiradda saartaa qandhadan saayidka sidee cunuga loogu jubin lahaa cunuga waxaa laga yaabaa dehydrated inuu yahay fluid intake badan in la siiyo oo dabcan inuu normal fluidkiisa caadi uu kusoo laabto waxaa kaloo loo baahan yahay antibiotics in la siiyo oo mar walba dabcan qandho haysa in xanuun baabiyo la siiyo paracetamol oo kale iyo fluid retention loo sameeyo gastritis ayaa jiro oo ku dhacay matag badan uu sameeyey indhihiis waxaa laga yaabaa marka inay sunken ay noqdaan ee god ay galaan calaamadaas marka waa inaad ogaataa marka in cunugan fluid intake uu kaaga baahan yahay biyo badan inaad siisid qandhadan aad ka jabisid markaan care supportive care aan u guda galno soo marka waa in la dagaalaa marka dhibaatooyinkii ay reebtay bacteriadan viruskan infection oo jadeecada oo isku bedelay secondary bacterial infection waa in ayada prevention loo sameeyaa ka hortag badan laga sameeyaa si aysan cunuga disability ugu dhigin maxaan ka soo hadalna hadaaye oo ay reebi kartaa inay keento otitis media conjunctivitis inuu jiro oo indhihii ay guduudan yihiin cunuga oo infection uu ka qaado oo caabuq saayid ay ku dhacaan infection xagga dhagihii ah oo caabuq oo malax ay ka socoto pneumonia oo jirto obstructive inuu yahay pulmonary-giisa soo marka waxyaabahaas iyo gastritis ayaa waxaa loo baahanyaa marka in care loo sameeyo tusaale ahaan antibiotic lagama maarmaayo markaas oo kale oo secondary bacterial infection oo lagu daaweeyo sida third generation groupkan loo yaqaano cefuroximada ama ceftriaxone ayaa loo baahnaan karaa waxaa kaloo loo baahan yahay marka bronchodilators corticosteroids si macnaha disabniye badan ayaa jirto asagana relief uu dameeyo bronchial obstruction dabcan oo pulmonary pneumonia saameysay in oo bronchodilatation loo sameeyo dexamethasone salbutamol clinical complication markuu yahay waxaa loo baahan yahay marka monitoring badan in lagu sameeyo dabagal badan in la ogaado case-kii maxaa recovery ah still weli sidii sameeyaa waa inuu hospitalization loo sameeyaa cunuga isbitaal la seexiyaa dabcan care ku fiican mar walba sababtoo ah at time waxaa loo daraa cirbadaha loo bilaabi doonaa daawooyinkaas loo bilaabay waxay la tacaalayaan bacteriadii ka dhalatay viruskan in dabcan aysan kusii dhibaatoonin oo aad complication badan aysan geenin meesheeda inhibition lagu sameeyo loo celiyo eradication lagu sameeyo la baabi'iyo soo marka jadeecadu waxaa laga maraa marka dhibkaas tirada badan Soomaalidan waxaa laga yaabaa dabcan inaysan faham buuxo aysan ku haysanin oo dabcan dadka qaarkood waxay u haystaan traditional wax yacni iska dhaqano oo daawo dhaqan ahaan loo siiyo ilmaha ay jiraan oo geed kuleel iyo wax loo yaqaano ama aan la daaweynbo waxaan leeyahay marka insha Allah waa in marka hooyooyinka ay ku baraarugaan in jadeecadu ay tahay dhib weyn oo cunuga wax curyaamin kara oo saameyn ku noqon kara noloshiisa dambana dhibaato u keeni kara indhihii ka ridi karto oo dhagihii maqalkii uu yaraan karo
waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay marka in faham buuxo hooyada inay hesho. waa in dabcan ay ku xisaabtantaa haddii calaamadihii aan soo sheegnay qaar ka mida ay ku aragto in dabcan ay ka taxadari karto ay geeni karto meel isbitaal. asxaabi waxaan idin leeyahay soo dhawaada, waxaan idinka codsanaa barnaamijyaadkan barnaamijyaad kale aan soo wadaa inaad share gareysaan, aad commentin ka dhiibataan, subscribe-na aad dabcan aad saartaan kanaalka. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.